adduunka ka joogtiin waa walaashin ubax farsame iyo mar kale taladii talaadada isbuucan waxaan rabaa inaan ku soo qaato in isbuucii hore waxaan kaga hadlay arinta ah markaan soo booqano isbitaalka isbuucan waxaan kaga hadlayaa qofka dhintay alla ya arham meesha geerida taalo markaanu soo booqano maxaanu sameynaa maxaan qaladnaa waa maxay qaladadan sameyno maxaan caadeysanay walaalayaalo qofka markuu geeriyoodo ilaahay ha u naxariisto waajibna tacsiida in la soo booqdo waa waajib hadda covid baa dhacay corona dhacday marka isbitaalna la isugu tago tacsina telefoonka la isugu tacsiyeeyaa laakiin aad ahaan Soomaali hadaan nahay maxaa noo ahaa qofkii uu geeriyoonaya tacsidii baa meesha taala ilaahay ha u naxariisto inta loo tago qofkii la oo tacsiyeyn lahaa familkii la oran lahaa ilaahay ha u naxariisto qofkii geeriyooday oo loo soo tacsiyeeyo laga soo noqon lahaa sidii isbuucii hore aan ka hadlayay oo kale ayaa waxa la weydiinayaa konton kale su'aalood annaga waxa moodaa hadaa Soomaalina FBI in loo hayr gareeyaba oo nalaga dhigo kulli detective baa nahayba politician aan nahay detective aan nahay baaritaanku waa ku fiicanahay su'aalaha waa ku fiicanahay waxyaabo waxa jira annaga ku qalan jibinay sida su'aalaha loo weydiiyo qofkii geeridii oo taala qofkii oo dhintay Allah u naxariisto familkiisa murugaysan yihiin ayaa waxa leeyahay muxuu dhintay tiisiya gashay waqtigiisa dhamaaday alla ya arhamar raahimiin muxuu dhintay maxay tahay soo anagu dad ma nihin islaama soo ma nihin dad og inay ajal jirto oo qofna uusan naftiisa ka hormareynin qofna ka dib dhacaynin aayadii miilowdeen marka qofkani muxuu u dhintay waa qalad wuxuu u dhintay tiisi baa dhamaatay waxa la oranayaa alla wallahi qofkii murugo reerkii murugo u taala murugo lagu siiridaya oo waxa laga waramayaa haduu xanuun u dhintay xanuunkii haduu kansar u dhintay kansarkii iyo dhibaatadii iyo inta qof ay u dhimatay iyo baa laga hadlayaa haduu xanuun kale u dhintay qofkii waxa la leeyahay reerkii laga yaabaa in xataa la blame gareeyo laga dhigoba inay iyagu qayb ku lahaayeen qofkan inaan caafimaad si dhaqso loogu helin meeshii tacsidii ayaa sheeko lagu qabsanaya هي هبلاية كورن ويجل صار دافع وحال اسمه بدل أروس على هذا أروس كي أو last week ولا إلو ويبا وابا ماشي إن تعسيون نمد وابا نسيلو نيبا قف كي لو يمد تعسيد إن لو تعسيه ها من تكوجه الرياء وحلورنا يا الله يا أرحم الله إن كل نفس ذائقة الموت إن الله يا أرحم الراحمين إنا لله وإنا إليه راجعون محاكو حاجة دانجو تمر حلوة سامبوس بر ماشي la isla dhacaya shaah qaxwe aniga marmarka qaar kood waxaan is dhahaa markaan tacsiida imaado tacsiima jooga mise aroosa jooga waan yaabaa moogta wallahi alcadiim been maaha waa dhab way waxaan ka hadlayo ma tacsiibaan jooga mise aroos baan jooga dadku ma waxay iloobeen inay tacsi joogaan tacsi xalwad la cunayo bal ilaahay idinku dhaarshay idinkaan idin dhiibay bal kaalay wax ka dhaxa ka soo jawaab Soomaali Maxamed taas idinka idin soo bandhigay tacsi xalwad la cunay indhiina ma saarteen aniga indhaygan saaray wallahi ana tagay labadeedin dood baan saaray timir digir bariis daango xalwad keeg ma hubo buskudna ma hubo laakiin xalwad mandaasi iyo sambuus de ilaahay baa idinku dhaarshay qof murugaysan gurigiisa tacsi taalo oo cunno la isla dhacayo deed waaba la daalay dadkii tacsida familka ahaa waa rafaadeen waa silceen ayaga oo qalbi xumadii iyo calool xumadii iyo qofkoodii geeriyooday walwalkiisii iyo murugadiisii qabay intii la nasin lahaa diintu waxay qabtaa 3 maalmood in qofkaas gurigiisa aan dab laga shidin oo wax loo soo kariyo laakiin annaga isaga waxaan gelinaynaa hawl ونو أديك أنت الله ما ضموا ما ضانو كلا أنت صفر استو الله بدل جوا سكر صارت أون مروجي إن حوجا كقيب صدق هذا حن جلا حن والله الشيء كذا إيه هذا الك إيه واحد ماشي قصعد واحد إسلاد هدات كان أراس ميت شوجان مثل تعسية شوجان هذا الله بقلبي ينسد شك يا جلايو مرك ولا ليالو أرمها ست وأرمها بونين تعسيد قفك مركها أني ما عنه وإن قفك أتعسينه مرجدي سير لقيب سنه إلهي إسحسوس سنه
adduunku inuusan waxba faa'iido lahayn oo maanta inteena joogto xataa waqtigeena aan la hubin geeridu inay xaq tahay ka bacdina qofkii inaan niraahno saddexda bariyo soo socota naso annaga ayaa wax kuu soo karinayna waajibku waa intaa laakiin inaan xalwad iyo buskud iyo timir iyo daango iyo cambuulo waaba party meel tacsiyo lagu partynayo adigu weligaa ma aragtay dee meesha markii intaasoo cunto lagu cunayo dee partigii iyo tacsidii iyo xafladii iyo arooskii ayaa iskaga keen qaldamay marka walaalayaalow tacsida yaa la fariisan lagu dheeraan tacsida qofka ha lala murugoodo ha la salaamo ha loo tacsiyeeyo murugadii ha lala qaybsado waxna ha loo keeno yaanan cunno laga cunin yaanan howl la gelinin yaanan jikada la gelinin yaanan shaqo loogu darin qofkii murugaysan shaqo yaa loogu darin ilaahay iguma keenee anigu waxaan dhahaa haddii aniga guriga tacsiyi igu timaado dee geeridu waa xaq oo cidna dee looma diidano oo ilaahay wuxuu keeno annaga ma diidanine waxaan idhi ha iga suginina idinka biyo ii keena idinka cunto ii keena iridda markaa ka soo gashiin fadhigaygana kama kacayo saas in la sameeyana waa qof walba waa inuu qofka guriga dadka imanaya guryahooday ka imaadeen gaajo ma hayso ani hadda gaajo ima hayso markaan tacsi tagaayo gurigaygaan ka imaaday anoo dharagsan maxaa waay gaajada i hayso maxaa la iigu keenaa cunto maxaa la iigu soo dhigayaa xalwad maxaa la iigu keenaa meel tacsi taalo war walaalayaal waxaasaan iska dayno waxaas waa laga fiican yahay arooska iyo tacsida aanu kala fahanno meesha aan joogno the space that we are in we need to understand what space that we are in inaan fahanno spaceka aan joogno baan u baahannahay qofka markaan soo salaano laga geeriyooday aanu tacsiyeyno aanu duceyno intaa ka bacdi qofkii aanu u sheegno niraahno waxaad nooga baahan tahay noo soo sheeg cunno u soo qaad u keen cabitaan u soo qaad u keen saddexda maalmood oo ugu horeyso qofkaas uu murugada ku jiro ha la caawiyo ha la isqaybiyo familiyada laakiin ha ugu imaanina cunno in laga cuno in lagu sheekeeyo iyo in wax lagu xanto definitely in wax lagu xanto subxaan allah ilaahay hana hadeeyo ilaahay hana maaragtay guuleeyo waan idin salaamayaa waan idin jeclahay thank you to all the supporters that subscribe and support my channel thank you so much please subscribe lacag ma aha waa free waan idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu